ahaantiin baddaawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan waxaad kusoo dhawaataan mar kale iyo weliba barnaamijkeeni ciyaaraha. barnaamijka ciyaaraha habeenkan caawa waxaa noogu martiya cabdirasaaq maxamed jaamac oo loo yaqaano carab. cabdirasaaq maxamed jaamac waxa uu ka mid yahay amaba haatan uu safdaa xulka gobolkaasi Gabiley, waxaa kaloo u ciyaaraa naadiga Goodir ee booliska. cabdirasaaq waxa uu ka mid ahaa jiray goolhayayaashii gobolka Maroodijeex gaar ahaan 2011 koobkii gobolada ee lagu qabtay gobolkaasi Togdheer gaar ahaan magaalada madaxdiisa Burco, isagu door muhiim ah amaba la oran karo door lama taabtaana ka qaatay in xulka gobolka Maroodijeex uu ku guuleysto koobkii halkaasi lagu dhigay ahaana laf dhabartii koobkaasi isagu u soo qaaday amaba kooxdaasi ka saaciday in ay soo qaado koobkaasi lagu dhigay gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada madaxdiisa Burco. waxaa kaloo xulka gobolka Maroodijeex cabdirasaaq u safanayay koobkii la qabtay isna 2012 ee lagu qabtay gobolka Maroodijeex. cabdirasaaq haatan waxa uu ka dirsan yahay xulka gobolkaasi Gabiley, waxaa kaloo u ciyaara naadiga Goodir ee ciidanka Bileyska. cabdirasaaq barnaamijka ciyaaraha habeenkan ku soo dhaw ayaan ku leenahay. bismillaahir rahmaanir rahiim. wad mahadsantahay walaal wad loowahay dadweynahana aad baan u salaamayaa wixii TV-ga naga daawanaya iyo wixii Jamhuuriyadda Soomaaliland joogay iyo wixii meel kale joogaba. haddii aan ku weydiiyo cabdirasaaq oo su'aasheeda ugu horeysa cabdirasaaq ahaan halkeed ku dhalatay, halkeed ku soo barbaartay, halkeed wax ku soo baratay, halkii kuugu horeysay kubad ka soo bilowdayna halkee ahay? bismillaahir rahmaanir rahiim. markii ugu horeysay horta waxaan ku dhashay gobolka Burco. markaan Burco ku dhashay kadib ayaan ka tegay Imaaraadkan ku noolaa. Imaaraadkan ku barbaaray 16 sano Imaaraadka joogay. 16 sano ayaan kubadda halkaas ku bartay, waxbarashadii halkaas ku soo qaatay intii badnayd. run ahaantii kubaddeeda maanta aan ciyaarayo ilaa maalintiina doorka weyn ka qaadatay waxay ahayd gobolka dowladda Imaaraadka oo tababarayaal iyo dad khibrad laba maxay ay joogeen. kadib waan imi dalkaan imi waxaan ku soo markaan ka imid dalka Imaaraadka waxaan ku soo dayay gobolka Eergaawo kubaddeedii aan ka sii bilowday. aan markaa laba position kala ciyaarayay markii hore. waxaan ku ciyaarayay markii hore waxaan ka ciyaari jiray markaan Imaaraadka joogay kubadda waxaan ahaa nin dhexa oo kubadda dilaan ahaa. markii dambena markaan gobolka Eergaawo imi ayaan maxay ahayd professional ahaan goalkeeper door bidaynay aniga ay meelaha positionka wanaagsan aniga ka soo bixi karay inay tahay. marka halkaasaan ka bilaabay goalkeeperkii aan haatan maantana aan ka taaganahay goalkeepernimadan wali aan ku taaganahay. sax markii aad dalka ku soo noqotay ayaa door biday inaad noqoto nin goolhaya oo isagu goolhaya uu noqday oo iska daayay kana talaasula dhexdii aad ka ciyaaraysay ayaa la oran karaa. alxamdulillah rabbil caalamiin. markaasaan ku talagalkeena Ilaahay wuu la qabtay. positionkaygii markii ugu horeysay aan qabtana dhalinyar badan baa iga caawisay oo waaweyn oo ay wada garanayaan aan is wada garanano. marka maantana waan ka taaganahay alxamdulillah rabbil caalamiin baan ka taaganahay yacniga tawaabashii iyo awoodii tii Ilaahay iyo tii dhalinyarmo la garab galayba. markaa dalka dib ugu soo noqotay naadigee ayaad ka mid noqotood ku biirtay oo aad goolhayo u noqotay? gobolka Eergaawo markaan kusoo degay waxaan ka mid noqday koox la yiraahdo Japan oo ku ciyaari jirtay magaca Japan ku ciyaari jirtay oo Idriiska Japan lagu ciyaaraan ku ciyaari jirnay. run ahaantii koox wadayar baan hayn wadayarara laakiin yacniga yaan magacahan koox awoodooda koobo badan iyo maxay ahayd awood ahaanba leh. run ahaantii anigu goolkan ugu jiray markaa meelihii ugu muhiimsanaa ayaan ka qaatay, doorkii ugu muhiimsanaa baan ka qaatay goolkeepernimada. koob hadday noqoto iyo hadday final noqotoba waxaan ka qaadanayay door muhiim aan ka qaadanayay maxay ahayd koobabka dhalinyartaan wada ciyaarinay waqtiga. markaad ku sugnayd kooxdaasi aad kooxdaasi u ciyaarisay heerkee ayaad ahaydeen? Serie C baan ahayn waqtiga. halkeed uga soo gudubtay? Serie B.
hay xulkeed marka naadigeed usoo gudubtay markii aad Zero B usoo gudubtay ma xulka waxaad sii joogtuun gobolkii Ceergaabo ayaad sii joogtay mise markii aad Hargeysa timay ayaad Zero B da ku beertay markaan gobolka Maroodi Jeeximi ayaan ku beeray Zero B di dhalinyar badan oo de iswada garanayno de run ahaantii aanu markii hore maan garanayn laakiin meelaha kale ku ciyaari jiray de waxaan iska ahaa nin de dhalinyarta iska dhex jooga marba meel ku ciyaari jiray markii dambe aan door biday inaan kooxda ka tirsanaado Zero B marka koobkii Zero B da ugu horreeyay la qabto ayaan ku biiray waxay ahayd 2007 ayaan ku biiray kooxdii Zero B da ahayd kooxdaasi kooxda Alxayaad ay kooxda intii aad ka tirsanayd doorinta leeg baad ka qaadat kala qayb qaadatay inta aad kooxdaasi ka tirsanayd koobab intee leeg baad kala safatay bismillaahir rahmaanir rahiim run ahaantii kooxda markii ugu horreysay aan u imi way soo dhaweeyeen soo dhaweyntii kadib markii la soo dhaweeyay dhalinyar fara badan oo wada bilaad yacniga de bilaad turxaano bilaad balwado bilaad yacniga rabshada ayaan u imi run ahaantii markiiba waan la qabsaday dhalinyartii markaan la qabsadayna magacii kooxda iyo magacii maxay ahayd meeshaan u ciyaaranayba kor baan u qaadnay waanan ku dadaalnay ilaahayna una la qabtay haatanna maxay ahayd markii dambe waan ka gudbo Zero A baan u gudbay markaan kubaddeeday kasii fiicnaatay sidii ayaan Zero A u gudbay sax intaana Zero A da u gudbin ee aad ku jirtay Zero B da aad u safanaysay kooxdaasi Alxayaad koobab intee ayaad la qaaday kooxdaasi bismillaahir rahmaanir rahiim kulli koobab badan baan qaadnay koobkii Zero B da waxaan ku harnay afartii baan ku harnay koobab aan qaadnay waxa kamid ah koobab xawaadla ku qaadnay koobab stadium ku qaadnay iyo koobab trials ku qaadnay ilaa 4 koob ilaa 5 koob meelaha aan ku guuleysanay baan maxay ahayd ayaa kamid ah markii aad soo gudubtay heerka Zero A da yaad kamid noqotay kooxdeebaad kamid noqotay maxaa la yiraahdaa gobolkeebaanad u safanaysay kulli gobolka Maroodi Jeex baan joogay waxaan u saftay kooxda UNESCO markii ugu horeysay aan taabagalo yacniga oo yacniga Zero A aan ku taabagalo kooxda UNESCO ka qayb galay markii dambe ayaan kooxda UNESCO aan ku jiray oo aan league aan u ciyaaray ayaan markii dambe aan u wareegay kooxda Goodir baad markaas ka mid noqotay kooxda Goodir baan ka noqday kooxda Goodir baan ku caan baxay oo dad fara badan ay ugu barteen oo aniga magacay ku caan baxay markii aad ka soo wareegaysay kooxdaasi UNESCO ee aad soo wareegaysay kooxdan Goodir ee Blaiska maxaa kugu kalifay inaad ka soo wareegto kooxdaasi oo aad soo wareegto kooxdan adigoo u ciyaaraya koox ka tirsan waxay u kalifay kooxda UNESCO inaan ka soo wareego kooxda UNESCO shirkad baa markii hore aan ku ciyaaranay UNESCO ah oo dhismaha shirkadii baa adigu yacniga hawl ku timi markaa dhalinyartii baa dee nin walba ciyaartoy walba meel doorbiday inuu meel tago marka anigu waxaan doorbiday inaan kooxda booliska oo weliba dhalinyar badan oo bilaysa ay yeedheen oo aan maanta yacniga u hayo abaaliyo ayay igu yeedheen oo igu yidhahdeen halkaa kaalay marka halkaasaan ka qayb galay oo biliskan ku biiray marka kooxdiinii UNESCO way baabaaday baa la odhan karaa wax sii jira may noqoneen nin walba halkii uu karayay inuu tagu tagay markii aad kooxdan Goodir ku soo biirtay maxaad kala kulantay sidee lagu soo dhaweeyay qof markuu koox hore ka soo tirsanaa rag badan oo kale ka soo garab ciyaarayay uu la qabsaday markuu koox kale u soo gudbo ama uu koox kale u yimaado wax laga yaabaa in caqabado badan ka hor yimaadaan adii caqabadihii ka hor yimi maxay ahaayeen kooxda horta kooxda Goodir dhalinyartii wada joogtay waqtiga joogtay kooxda dhalinyar wada ixtiraam iyo akhlaaq badan bay haayeen run ahaantii wax caqabado aan kala kulmay ilaa maanta haba yaraatay ma jirto si fiican bay noo soo dhaweeyeen si fiicanna waanu ula taabagalay number 2 gana waanu fadhiyay inaan number 2 u noqdo ayaan maxay ahayd ku qanacsanaa marka maxay ahayd aan kooxda ku soo biiray oo xirfadaydan kordhisanay mar walba khibradayda ka faa'iideysanay ninkii number 1 ka yahaa marka alxamdulillah rabbil caalamiin waa si fiican bay la qabteen dhalinyartaas Cabdirasaaq waxa igu maqaalaa inaad ka tirsanayd xulka gobolka Maroodi Jeex
koobabna aad kala soo qeyb qaadatay xulkan gobolka Maroodi Jeex oo koobkii lagu qabtay gobolka Togdheer gaar ahaan magaalo madaxdiisa Burco in aad door muhiim ah aad ka qaadatay bal dareenkaaga koobkaasi aad ka qeyb qaadateen aad ku soo guuleysateen iga waran koobka gobolka Togdheer horta markii ugu horeysay tabaabushay si fiican baan tabaabushay aniga iyo tababarkii iyo dhalinyartiiba in badan baan halkan ku tababaranay marka tababarkii kadib baan halka tagnay tabaabashada ayaguna wuxuu ahaa sida run ahaantii markii horeba lagu xaminayay waxa la hawo kooxda ugu awoodda badan gobolada maxay ahayd gobolada la ciyaarayo 12 marka run ahaantii anaguna iskama dhigin kooxdii ugu awoodda badna inaan ahayn run ahaantii waxaan iska dhignay koox caadiya tababarkaygan ku dadaalanay iyo tababarka macalinku nasiinayay alxamdulillah rabbil caalamiin anagu run ahaantii niyadeedu waan doonayna mar walba inaan koob ka qaadno ilaahay inuu nala qabtay taawada ilaahay baan ku soo qaadnay alxamdulillah rabbil caalamiin inta aad koobkaasi ciyaarayseen kulamadiidii ku adkaa yaad la yeelateen kulamadaas ugu adkaa aad leedahay run ahaantii horta annagana lagu bilaabay annagana maxay ahaydna lagu khatimay koobkii kullay bilowga marka la bilaabayo jawigu gaar buu waa jawi gaara garoonku saameyn gaar u leeyahay taageerayaashu saameyn gaar ay leedahay gobolka Burco la ciyaarnay gobol ciyaartii ugu horeysay oo lagu aftaxay run ahaantii ciyaar adag baan ciyaarnay waliba aan khibrad badan ka faa'iidnay ciyaartii aan maxay ahayd ciyaaruhu uu kaayo wada mid bay haayeen ciyaar koox ka jilicsan na soo martay 12 habeeraati ma jirto kooxu isku wada awood bay haayeen ilaa Burco ilaa Hawd ilaa maxay ahayd Laascaanood goboladu isku kooxo wada dheelitiran bay haayeen kooxo wada awood laba haayeen laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin tii ilaahay baan ku qaadnay iyo qoraalkii raxmaanka marka koox idinka si gaar ah idii saameeysay oo isleedihiin kooxdaas idin ku yar adkeedo jeeri kar weydeenoo si dirqiya ku dhaafteen miyaana jirin taasi way jirtaa waxay ahayd kooxda maxay ahayd gobolka Hawd kooxdaas aan ugu awood badnayd oo aan iskrinayna waliba kooxda aan iskrinay waxa laga yaabaa inaad tiraahdo wad ka badanaysaa ama maxay ahayd way ka badanayaan ku talagal bay ahayd laakiin kooxda gobolka Hawd wuxuu lahaa saameyn gaaro dhalinyartii baan iswada garanaynay nin walba ninka kale garanayay ninka ka soo horjeeday ninkii maxay ahayd nin walba positionkiisa uu hayay ayuu garanayay marka saawgeed baan u leenahay yani gobolkaas aan ugu awood badnaa ciyaarnay gobolka 12 koobkii ka dambeeyay isla waxaad u safanaysay xulkan gobolka Maroodi Jeex inteeyo kulan baad ka qayb qaadatay koobkaasi waxaan ka qayb qaatay laba ciyaarood baan ka qayb qaatay labadii ciyaaroodna alxamdulillah rabbil caalamiin ciyaarna waan barbareynay ciyaarna waan badanay kadibna intaas markaa aan labada ciyaarood baan ciyaaray dhaawacna uu igu yiri jiray lugtu way raxanaysay run ahaantii inaan kan saaxiibanahay guuleed ayaa run ahaantii naga caawiyay inaan maxay koobkana ku guuleysano koobkan 2013 marka adi waxa la oran karaa kulamadii labada kulaneed ka qayb qaadatay mooyaane kulamadan kale waxa ka reebay dhaawac adiga ku soo gaaray gaar ahaan ayaad u safan weyday ayaad waaneynaysaa sax markaad maxaa la yiraahdaa ay qaadeen koobkii gobolada ee 2011 lagu qabtay Alamsi Stadium dareenkiinu sidoo ahaa wallahi maxay ahayd kullay meel kale aan gobol kale aan tagnay run ahaantii ma baran inaan gobolka ku ciyaarno waana gobol de saameyntiisa leh taageerayaashiisa leh dadweynihiisa leh macal tababarkii aan tababaranay yaniga caqabadaha naga soo gaaray ba kamid ahaan kuleylka saameynta kuleylka marka kullay gobolku uu na soo dhaweeyay laakiin kullay gobol adag buu ahaa imika waxay ku maqaalaa Cabdirasaaq oo inaad ka tirsan tahay xulka gobolka Gabiley maxaa kalifay inaad ka tagto xulka gobolka Maroodi Jeex oo aad tagto xulka gobolka Gabiley gobolka Maroodi Jeex waa gobolka aan ku taabageli jiray mar walba inaan u ciyaaro run ahaantii magac iyo muuqba maanta waa ku yeeshay gobolka Maroodi Jeex
alxamdulilah baan leeyahay. Laakiin waxaan isleeyahay dhalinyarta maxay ahayd gobolka Gabiley caawi oo positionka ka dhiman u buuxi, sababta awgeed baan gobolka ugu biiray. marka adiga door biday inaad ka tagto xulka gobolka Maroodijeex oo aad tagto xulka gobolka Gabiley. Anaa door biday. Cabdirasaaq, intii aad kubadda kusoo dhex jirtay aad ahayd goolhayaha amaba goolkiibarka, ciyaaryahankii kugu adkaa ama aad kubadahooga ka baqi jirtay amabaas odhan karto ciyaaryahankaas kubaddiisu ay halistoo aad ka gaban jirtay, keebuu haabaad odhan kartaa? wallaahi horta ciyaartooy badan baa soo maray, ma soo koobi karo, way badan yihiin ciyaartooydu, laakiin ninbaa shakhsi ahaanbaa ninbaa maxay ahayd usii fiicnaa khatar ahaa. waa ninka iminka gobolka Sanaag haysta isuduwaha ka ah, Maxamed Dhageer. ninkaasaad markaa kubaddiisa ka baqi jirtay markuu kugula soo baxo miyaa? run ahaantii waa ninka keliyaatee difaacana si fiican usoo dhaafi jiray. anigana run ahaantii kubada ama haddaan ka qabto ama wiga dhaliyoba si khatara aniga maxayd kubadaha u qaadan jiray. Cabdirasaaq, qof walba waxa uu leeyahay han iyo himilo. markuu qof walba kubadda soo bilaabayo meel buu hiigsadaa, qof buu hiigsadaa. aduu yaad ku dayan jirtay oo aad jeclaan jirtay ciyaaryahanada Somaliland, gaar ahaan goolhayaasha Somaliland aad ku dayan jirtood oran jirtay sida hebel oo kale maad u ciyaartay? keebuu ahaa qofka aad ku dayan jirtay goolhayanimada aad kaga dayan jirtay? horta maxayd ciyaartooydii waaweynaa gobolada run ahaantii maan soo gaadhin, yacniga maan daawan jirin, lamaan joogin, qurbaan ku maqnaa. markaan imi dalkaan imi oo aan Maroodijeex soo wareegay ayaan arkay goolwadayaasha ugu fiican inuu Salebaan Cabdilaahi Yaasiin uu ka mid yahay. marka raggan ku taabageli jiray inuu ka mid ahaa, asagaa ka mid ahaa. kulley ragga aan door biday inaan yacniga la mid noqdo asagaa yacniga aan arkay xirfadda, yacniga wax xirfad khibrad leh oo yacniga oo iga caawiyay run ahaantii khibraddiisii iyo khibradaan anigu lahaaba iga caawiyay inaan xirfadayda iyo magacaygaba alxamdulilah rabbil caalamiin kor u qaato. goolhayaasha adduunka amaba goolhayaasha adduunka cidaad iyaga ku dayan jirto waad jeclaan jirtay inaad sidoodoo kale aad u ciyaartaa ma jirta? kolley qof walba shakhsi ahaanba ninbuu door bidaa, laakiin anigu shakhsi ahaan ninka dalka ila jooga khibraddan ka faa'iidanaya aan arkay inuu practical iyo theory wuxuu sameynayo ayaan ka door bidi jiray ninka aan TV ka daawanayo. ragga khatarta Jalwaji Buffon baa khatar ahaa oo ragga ugu waaweynaa kubadda maxay ahayd magac ilaa al'aan ku leh oo al'aan ciyaara. raggaasan run ahaantii yacniga aan door bidi jiray oo jiray ninkaasoo kale maad noqotid ama yacniga aad kaga dayid. marka taa laga imaado ninka halkan dalka aan ku taabageli jiray mar walba inaan ku daydo waa ninka number 1 iyo ahaa biliiska, anaa number 2 ga u ahaa. waxaanu taaganahay gabagabadii barnaamijkeena Cabdirasaaq. dhalinyar badan baa ku daawanaysa, bal dhalinyartaasi maxaad adigoo fursadan ka faa'iideysanaya caawa aad halkan uga soo jeedin lahayd? dhalinyarta waxaan ku dhiirigelinayaa wixii kubad ciyaaray iyo wixii muuqayga garanayaba. kubadin la isku garan maayo, nin walba ninka kale waxa laga yaabaa in magaalada la isku wada wajah garanayo. everyone qof kastoo daawanaya TV-ga iga daawanaya qaranka waxaan jeclahay inaan maxay ahayd ku hanuuniyo diinta islaamka. aan ku idhaahdo nin walba waxayna loo abuuray inaan cibaadaysano, cibaadadana lagu dadaalo. qof kastoo islaamana waxa ku waajiba inuu ilaahay u xidhnaado shantiisa waqti ku cibaadaysto. kii ilaahay hanuuniyeen inuu maxay ahayd wadadiisa sii hayo, kii aan maxay ahayd cibaadaysan jirna waxaan ku dhiirigelinayaa inaad ilaahay u noqotid. xabaal bay naga dambaysaa insha allah. qof walba camalkiisu akhri la tegayaa. waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad cibaadaystaan. saasana dhalinyarta kubadda la ciyaartay iyo kubadda iyo dadweynahan daawanayaan wada garanayoba ayaan ku dhiirigelinayaa. daawadayaal, intaasna waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii ciyaaraha oo habeenkan caawa intaasi nagaga idil. habeenkanna barnaamijka waxaa noogu marti ahaa Cabdirasaaq Maxamed Jaamac oo ka tirsan xulka gobolka Gabiley iyo kooxda Goodir ee booliska. Cabdirasaaq, waad mahadsantahay waqtigaaga qaaligeedna siisay.
daawadayaal barnaamijkan barnaamij lamida intaan iskugu iman doono waa kamaradii Foosi Axmed Caynab waa habeyntii iyo isku dubaridkii Maxamed Ibrahim Dhimbil anigoo barnaamijka idila socodsiinayna waxaan idinkaga tagayaa kulankan kulamida intaan isku arki doono is aragti maqal dambe ka hor assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh